kusoo dhawaada daawadayaal telefishinka BBC Soomaali waxaan idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo ciyaarihii qodobada ugu waaweyn. farxad muujinaysa in ay badbaadeen waxaanu la hadli doonaa Soomaali ka badbaaday dooni tahriiba oo ku degtay badda Mediterranean-ka. rajo ayaa soo baxaysa farsamada dronesku gacan ma ka siin karaan reer Malawi dadajinta baaritaanka HIV. البرقسي ayaad ku weynaysaa militariga Mareykanka oo dhigay rikoor cusub qodobkaasi iyo kuwa kaleba waxay ku jiraan barnaamijka Click. waxaanu ku bilaabaynaa warbixin gaar ah oo ku saabsan qaxootiga Yurub waa tiradii ugu badnayd ee soo gashay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka 12 bilood ee ugu dambeeyay in ka badan 1 milyan ayaa halis soo galiyay naftooda iyagoo soo raacay doomo yaryar oo la buux dhaafiyay oo ay kaga soo gudbeen badda Mediterranean-ka sanadkan oo kaliya in ku dhow 200,000 ayaa ka soo gudbay badda in ka badan 1,000 ayaa dhintay ama la laayahay ilaa bilowgii sanadkan waxa loo malaynayaa in boqolaal kamida kuwa dhintay ay ahaayeen Soomaali. adlis waxaa dhintay 300 oo Soomaali iyo dheeraad gaarayaan guud ahaan waxaan ahayn 500 ayaan ahayn guud ahaan oo waxla ayaan ahayn waxaan kaga soo badbaadnay 41 qof oo kaliya oo isugu jira Soomaali Oromo iyo Masaari. waxay yiraahdeen boqolaal baa dhimatay mase hubaan oo dhibaatadu habeen ayay dhacday. liibaan waa uu badbaaday waa samurugoonaya oo walaashii iyo walaalkii ayaa baddu liqday. ilmahan 3 jirka ah waxa uu ka mid yahay intii yarayd ee badbaaday oo Soomaali Itoobiyaan iyo Masaari u badnayd oo uu samata bixiyay markab xamuul oo marayay Mediterranean-ka. ilmahan dholla cadayntiisu wax ishaare ah ka bixin mayso rafaadkii uu soo maray. waxay sheegeen safarkoodu inuu ka soo bilowday xeebta Liibiya doontan oo kale ayaa la soo saaray 200 oo qof haddana habeenbarkii ayaa kuwii soo xambaaray waxay u sheegeen in lagu wareejinayo doon kale oo weyn oo 300 oo qof siday waana ay la degtay. waxay arkayeen carruur badda ku qarraqantay. sayid ayaa ay weydiistay telefoon si uu hooyadii uga waco Itoobiya oo ugu sheego inuu badbaaday oo uu nool yahay. saraakiishu waxay ka baqayaan xilligan kulaylaha ee soo socda inuu noqdo mid ka sii masiibo bata wakhtiga kan. inkastoo la ballan qaaday in ammaan laga dhigo badda Mediterranean-ka haddana lama joojin karo tahriibka waqooyiga Afrika ee Yurub oo kuwii ka badbaaday waxaaba ay sheegayaan inay ka go'an tahay Yurubta kale in ay u sii gudbaan. kuwaasi ka soo badbaaday tahriibka badda nolosha cusub ee Yurub ayaa ku adkaatay. Cabdiraxmaan Koronto ayaa ku booqday wiil yar oo Soomaaliya koonfurta Jarmalka kaasi oo isweydiinaya inuu qaatay go'aankii saxda ahaa. cabdiraxmaan aadan xasan aroor hore ayuu ku kalahayaa iskuul uu ku barto luqadda Jarmalka waxay fure u tahay noloshiisa cusub ee halkan. si uu halkan u soo gaaro wuxuu soo maray safar saxaraha ah iyo dhul buuraley ah. 17 markii uu jirsaday ayuu go'aansaday in Yurub uu ka heli karo mustaqbal wanaagsan waa go'aan dhibaatona ay ka soo gaartay. waxaan imid gurigiisa cusub oo ku yaala tuulo Jarmalka ah oo dadka howlgabku ay degaan. dad aan garanayo wajiyada toos wada garanay horteeda ku dhintay aan waxba qaban karin anigina markaa xitaa aan awood lahayn asxaab badan aan lahaay markaa ku jirtay marna bay loobi maayay taas wax aad u adag bay runtii waxaan loobi karaa marna ma aha. dhibaatada kali kuma aha cabdifataax axmed cabdi wuxuu halkan joogay 6 sano wuxuu hadda caawiyaa dhalinyarada cusub ee halkan soo gaarta sida cabdiraxmaan xasan. meel cidlaa reerkii lacag kula hadla aanu haysan lacag uu diraanu haysan sharciga goor uu soo dhacay aanu garanahay iskuulkii aanu garanahay waxa soo dhan marka la isu geeyo ilmihii waxay ku kalifaysaa in waali caadi galo waxaad arkaysaa nin daayar oo isla hadlaya. assalaamu calaykum. waxa jira goobo uu ku soo hiran karo cabdiraxmaan ayaan u soo raacay Augsburg oo ka mid ah magaalooyinka qadiimka ah ee Jarmalka 60 kiiloomitir ayay waqooyi ka xigtaa tuuladiisa. sidaad arkaysaan cabdiraxmaan aadan xasan waa markii ugu horeysay ee halkan uu yimaado hase yeeshee fursad aad qaali ah ayay u tahay waxa uu la kulmay bulsho Soomaaliyeed oo kala duwan dad cusub ayuu bartay waa meel uu ku soo hiloobi karo oo iman karo hase yeeshee dhibaatada taagan ayaa waxay noqon kartaa waa safar dheer oo ilaa 1 saac ku dhow isagoo aan shaqaynin arday ah haddana in ay ku adkaan karto in 50 euro uu maalin kasta u soo bixiyo si fursadan oo kale uu u helo.
gurigiisa oo aan ku soo laabannay wuxuu cabdiraxmaan wacayaa hooyadii bishiiba mar ayuu awoodaa markanse kuma farxin warka uu maqlay maadaama uusan shaqaynin way ku adkaanaysaa inuu caawiyo hooyadii ama ogaado in dib dambe uu u arki doono wax weyn ayuu ku waayey noloshiisa cusub cabdiraxmaan koronto tuulada bad wolshoven koonfurta jarmalka BBC Soomaali markana warar dheeraad oo ku saabsan caalamka intiisa kale wadahadallada Yemen ee qaramada midoobay ay taageerayso ayaa dib uga bilowday Kuwait maalintii Axadii ayaa dawladdu ay ka carotay mucaaradka oo qabsaday saldhig military xuutiyiinta ayaa la dagaalamayay dawladda Yemen ilaa sanadkii 2014 waxaana ku dhintay dagaalkaasi 6,000 oo qof abaartu ma aanay saamayn gobolkan oo kaliya balse koonfur Afrika waxa ayana soo wajahay abaartii ugu baanayd muddo 30 sano ah beeraley badan ayaa laga cabsi qabaa in suuqa ay ka bixi doonaan qiimuhuna uu kor u kici doono waxay ahaan jirtay koonfur Afrika dalka galeyda ugu badan soo saara Afrika laakiin hadda iyaga ayaa soo gata dhaqaatiir Boolish ayaa sheegay in ay qarka u saaran yihiin ay daawo u helaan naafanimada iyagoo adeegsanaya unug jirka lagu talaalay ayay dayactireen laf dhabarta ninkan oo margabi ahaanba naafan noqday tijaabadan ay wadaan ayaa haddii ay ku guulaystaan dad badan caawin doonta warbixin cusub ayaa ka digaysa in 5 meelood meel dhirta adduunka ay baaba'ayso halista isbeddelka cimilada adduunida awgeed daraasad London ay ku sameeyeen saynis yahano ayaa sheegtay in 2,000 oo noocyo cusub oo dhir ah la ogaaday 2015 markana drones kama lagu badbaadin karaa nolol tijaabo cusub oo laga samaynayo Malawi ayaa dardargelin karta baaritaanka HIV ee goobaha fogfog ee dalka waxa rajo laga qabaa in tiknoolajiyadan ay hoos u dhigto waqtiga sugitaanka baaritaanada HIV isla markaana ay badbaadiso nolosha kumanaan kun oo qof Axmed Ibrahim ayaa ka waramaya mashimbirba mise waa diyaarad maya waa daroon waxaana suurtagal ah inay wax ka bedesho daryeelka HIV ee Malawi dadka deegaanku aaladan duulaysa aad bay ula yaaban yihiin oo wax iska weydiinayaan wax sahlan se ma aha halkani waa dhul fog wayna adag tahay in la soo gaadha waana sababta keentay in cudurka goor dambe uun la ogaado isla markaana 10,000 oo carruur ah ay ugu dhintaan AIDS-ka sanad walba goobtan caafimaadka miyiga ku taal waa halka carruurta loo keeno baaritaanka laakiin shaybaadhada soo saara natiijadu halkan way ka fog yihiin maantana waxaa la baadhayaa inantan yar ee AIDS oo 4 bilood jirta baaritaan dhiig oo khaas ah ayaa sheegi doona inay qabto HIV iyo in kale laakiin hooyadeed waa inay sugtaa muddo 3 bilood si ay u ogaato natiijada baaritaankeeda cunugaygu wuxuu bilaabay qufac sidaas ayaan isbitaalka u keenay mid kale oo carruurteyda ah ayaa qaba cudurka iyo anigaba dhiigga laga qaaday hadda waa la qalajiyey waxaana lagu qaadayaa mooto ama dhugdhuglay sii mari doonto dhul wasakha oo geynaysa shaybaadh gaara inta badanna dhiigagga waa la isla sugaa si mar qura loo wada qaado oo kharashku u yaraado arrintaasina waxay sii kordhisaa dib u dhaca haddaba halkani waa meesha ay daroonisku soo gaadhaan iyagoo qayb ka ah tijaabo khaasa oo aad u soo gaabin karta wakhtigii la sugi jiray natiijada baadhitaanka HIV maanta dhab ahaantii waa maalin cajiib ah ma malayn karaysaa hooyo inay sugto 3 bilood si ay u ogaato haddii cunugeeda uu qabo HIV-ga dhaliya cudurka AIDS-ka hadda waxaa suuragal inoo ah in aan ku ogaanno dhowr toddobaad gudahood haddii tijaabadani ay shaqayso tijaabadani weli waxay ku jirtaa wejigii bilowga ahaa haddii lagu guulaystana waxay wax ka bedeli doontaa qaabka loola tacaalo AIDS-ka Malawi oo kaliya ma ahee guud ahaan qaaradda Afrika oo dhan markana Sacuudi Carabiya oo gabdhaha dhigtay iskuulada dawladda aan loo ogolayn inay ka qayb galaan ciyaaraha guddi wasiirada ayaa loo saaray inay dib u eegaan khafiifinta sharcigaasi Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa waxay u egtahay goob jirdhis balse Sacuudiga meel gaar ah ayay u tahay hala al-Xumraani oo karateega ku baratay Mareykanka ayaa xarun dumarka ku bartaan feerka iyo laadka wada socda ka furtay Sacuudiga oo aan dumarka loo ogolayn every day I get 5 6 7 8 10 emails a day maalin walba waxa ay soo gaar 5 6 7 email oo ah dumar i weydiisanaya qol ma noo haysaa sababtoo ah baahi ayaa jirta tani waa sababta aan ugu duceysto in ay arrimaha ay noo fududeeyaan marka ay timaado jirdhiska iyo goobo cusub oo laga furo Sacuudi Carabiya furtaan xarumo dumarku ku tababartaan ma aha hawl fudud sidaa darteed hala fasax kama sugin xukuumadda
guriga waalidkeed ayaa dumarka ku tababartaa 2 ayaa dumarka ka hortaagan ka qaybgalkooda ciyaaraha sharciga iyo lacag gabdhaha ardayda ah ee iskuulada dawladda looma ogola jimicsiga 2013 golaha shuurada oo la taliya boqorka ayaa ku taliyay qaadida xayiraadda saaran iskuulada dawladduse weli go'aan kama gaarin kooxdan gaarka ah ee kubadda kolayga oo la sameeyay 2006 ayaa dumarka ku dhiirigelinaya ciyaaraha balse fursadan cid walba ma awoodo olimbikadii 2012 laba gabdhood oo Sacuudiyaan ah ayaa ka qayb galay dumar badan ayaa rajo ka qaba in olimbikada Rio ay tiradaas kororto balse 2 milyan oo gabdhaha Sacuudiga ah oo isbedel sugaya ma daneeyaan ciyaaraha dhihla inta badan dadka ka qayb gala waa kuwa shirkadda gaarka loo leeyahay waxaan isleeyahay waa lafdhabartii iyo asaaska isboortiga dumarka Sacuudiga balse waxaan rajaynayaa in sidoo kale gabdhaha iskuulada dawladuna ka qayb galaan dhawaan laba haween Sacuudi ah oo si gaar ah loo tababaray ayaa ka qayb galay ciyaarihii Olympiga ee London qaar badan oo halkan jooga waxay rajo ka qabaan inay arkaan haween badan oo ka qayb galay ciyaaraha sanadkan ka dhici doona Rio de Janeiro laakiin malaayiin gabdhaha Sacuudiga ah ayaa sugaya isbedel balse arintan qorshaha ugu ma jirto markana waa barnaamijka tiknoolajiyadda ee Click waa farsamada special effect ee qurxinta fiidiyowyada waa xaqiiqo wax laga bedelay ayay leedahay shirkadda wax qarinta badan ee Magic Leap waxay soo bandhigtay sida dadka adeegsaday ay qalabkooda uga arki karaan duni kale halkan iimaylada ayay hubinayaan internetka ayay ka adeegsanayaan waxayna duulinayaan jellyfish ma lagu tilmaami karaa helikobtarka dunida ugu badbaadada badan kuwa sameeyey ayay sidaa la tahay aaladdan oo la yidhaahdo volocopter waxay leedahay 18 baal oo ay sii duuli kartaa xitaa haddii qaar ka mid ay hallaabaan halibiqsan ama way ku dhaafi kartaa militariga Maraykanka ayaa jebiyey xawaaraha dunida ee baabuurta iyagoo sameeyey baabuur dheerayntiisu xad ka dhaaftay saacaddii wuxuu socon karaa 1018 kilomitir oo ah 280 mitir ilbiriqsigii Leicester ayaa waxay ku guuleystay horyaalka Ingiriiska guushani lama filaan ayay ahayd waatan daqiiqadii ciyaartooydu ay ogaadeen inay guuleysteen waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee taariikhda isboortiga waxaase la yaab lahaa in sanadkii hore ay si dirqi ah uga baxsadeen inay ka haraan horyaalka caawa waxaa indhaha lagu hayaa caasimadda Spain halkaas oo Manchester City ay isku dayayso inay gaarto markii ugu horeysay finalka Champions League waa inay ka adkaadaan kooxda Real Madrid oo 10 jeer qaaday koobka Ronaldo ayaa soo laabanaya iyadoo tababarihiisa Zinedine Zidane uu sheegay in 100% uu diyaar u yahay City kadib dhaawacii soo gaaray markana waa xanta ciyaaraha kubadda cagta ugu dambeyntiina bal eeg muuqaalkan la yaab kale laakiin fadlan ha isku dayin waa markii ugu horeysay booditaanka noocan la isku dayo baabuur saacaddii 100 kilomitir soconaya gadaal ayuu uga booday Damian Walters wixii warar dheeraad ah ee ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka fadlan booqo bogga bbcsomali.com intaas ay ku egyihiin wararkeennii sidaas iyo nabadgelyo